dhismaha wadada tabca ee isku xidha magaalo xeebeedda Maydh iyo sidoo kale Ceerigaabo oo uu gacanta ku hayo dhismaheeda ururka DID oo ka diiwaan gashan wadanka UK iyo Somaliland ayaa noqonaysa haddii lagu guuleysto mid horumar ballaaran u horseeda bulshada gobolka Sanaag. fadlan muwaadin ka qayb qaado qaadhaanka loo ururinayo dhismaha wadada tabca gamca wada jira ayuu horumarku ku jiraa. qarar badan baa lagu tabcaan ka soo baxay iyo tabcaan ka soo degay laakiin marna maskaxdayda may gelin sawirkan aan maanta arkay ka xukuumad ahaana waxay la tahay wadadan wadna oo qaranka oo ummaddu u baahan tahay qof kasta oo muwaadin oo Somalilandera meel kastuu joogo waxaan ku boorinayaa inuu ka qayb qaato dhismaha wadadan oo ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saare niman xil saaray oo la yiraahdo Dala Education and Environmental Development waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro ummad ku dayasho leeyahay inta kalena ha idin ku dayato waar inta kalena waxaan leenahay waar ku dayda oo dadkiina meeshan colaad ka horiyaan isku dayayo adar qalab baan u baahanay wax horumarnaan ku waxbarashaan u baahanay deganaanshaan u baahanay biyaan u baahanay imika wadada inoo sameyn karaan dhaan bay inoo qodi karaan waxa kale u baahdaan amba shidaal ha noqoto amba waxa noqoto inaanu raadino diyaar baan u leyn inaanu isku rogooyinka wax saar laayeen u raadino diyaar baan u leenahay iskaashigaas waxa noogu soconayaan akawnadii waa la qaybiyay qacan weyn baan kulay dadkeena ka filaynaa. wadada Maydh gacanta u qaadno haddaynu reer Sanaagnahay mid ma jarafadkeena iyo mid macadaadkeena iyo mid bahal daamurkii keena war fadhiga ha laga kaco haddaynu reer Sanaagnahay waxay loo ballanayeen in wadada tabca saweysano xeeb la'aan baa la inagu dhaafay wada la'aan baa la inagu dhaafay waxa aynu haysano cidina ma haysato dadkeena halka fadhiya iyo dadka la mid ah TV-yada ka dhageysanaya war halka dollar ee meel akoon loogu tubaa wax buu noqonayaa wadooyinka waxaan reer Sanaag ku horinayaa wadooyinku waa meelaha laga dhismo waxa weeyaan infrastructure horumarka iyaga number 1 ka wadadani waa wada caam ah oo waxa weeyaan maxay ahayto aad garanaysaan oo Ceerigaabo iyo Maydh isku xidha cid kastoo waxa weeyaan uu gaaro hadalkani waxaan insha Allah ugu baaqaynaa wadada inay ka qayb qaataan oo waxa weeyaan si mug looga qayb qaataan haday qurba joog tahay iyo hadii ay tahay dadka gudahaba waana sadaqad jaariye ah cid Allah cid wax ku darsataa dhowr kiiloomitir waanu sameynay in badan aynu sii wadaan doonaa mashruucyada SDF mashaariicda kale hay'adaha wadadaas in xil weyn la iska saaro waa wada isku xidhaysa guban xeebihii Somaliland iyo ogadii إلهينا قديم تاريخ قرن وإيسو إلهينا قديم wasaaradda waxbarashada waxaa leeyahay dadka macallimiinta waxaa leeyahay wasaaradda waxbarashada waxaa leeyahay ardayda in wax loo saaro wadadaas oo ay loogu tabarco ciidamada sidoo kale waxaan leeyahay ciidanka wax loo saaro bish wax looga gooyo dadka deegaanka gobolka Sanaag inay ka qayb qaataan dhamaantood ganacsatada
dadka deegaanka inay wadada wax ku darsadaan waa sadaqade shirkadaha isgaarsiinta sidoo kale ma dhammaan dadka markaa qurba joogta ganacsatada Soomaaliland u dhalatay kuwa gobolka Sanaag ganacsatada Ceerigaabo shirkadaha isgaarsiinta shirkadaha leydhka dhammaan waxa laga codsanayaa inay wadadan wax ku darsadaan arintan daafurka qaadaanka wadada mayd maanta halkan aynu isugu nimi waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu hirgalo waxaynu baanahay horumar weyn horumarkuna hadal qura ku iman maayo wuxuu ku imanayaa ficil gobolku intaanu bir joogin waxaan u qirayaa inuu yidhi baasha karintaan gaadhsiino uga baahan yahay reer Ceergaabo inay iyagu u kacaan annaguna maanu badhino dinacadaad baanu leenahay dowladda hoose waan ku deeqaynaa waana keenaynaa inta suuragala maxaan ku dhahaa nus milyan qof ayaa wadadan ay cuntada u martaa noloshooda ay ku xidhan tahay waana wada aad u cadilan oo hadda arkaysaan marka walaalaha haddii aan la yiraahdo daafaha adduunyada iyo dagal joogtaba waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa ihsaanka iyo wanaagga la wado inay wax ku darsadaan ilaahay wuxuu ina faray inaan khayrka isu gargaarsano wadada tabca tagtamayd dabadeedna uga sii gudubto meelaha kale xeebaha ee Laasqore iyo Xiisiyo waan u baaqaynaa oo reer Sagaan ugu baaqaynaa hadday qurba joogta tahay iyo hadday tahay dadka jooga iyo cid kasta oo ka qayb galaysa waxaanu leenahay wadadaas cid kasta oo ka soo qayb galaysa waxaanu ugu baaqaynaa inay ka soo qayb gasho muwaadin tabarucaadkaaga ku hagaaji lambarada iyo akoonnada shaashada ka muuqda